sadawaa la luudaamiyaa la qansahay waa ninkii laasa yiri baa hambada lagala laabma docaynta iyo shariifada aad ka wado inaad saddexaysato adigoo hore u labaystay waa arin gudnima waa arin sadqaybsiga inaga dhaxeeyay aan noqonayn waxaan leenahay uga digaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxa ay waxyaabaha uu hoos dawladda ka hoos wado iyo gacan gelinta waliba family-giisa hoose ku soo hoos noqonayo waxaan leenahay waa inuu ka waantooba halkan waxaan ka direynaa baaq dhalinyaro baaqaas oo ka kooban oo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Saalax Silimo oo sameynaya sadbus waxaan leenahay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha arinka si hoos ahaan u eeg oo soo farageli waxa uu rabaa Saalax Silimo inuu boobo sanatarka uu ka tagay ra'iisul wasaaraha ka noqday Soomaaliya aqalka hoosena qof baa xaq u leh maanta oo ahaa oo horena u fadhiyay Nuura Faarax waxaan leenahay inuu sameeyo buraba sadbursi booskana uu ku buuxiyo sidoo aqalkii hoose iyo aqalka sare baa berigi dhaweyd sadbursiga ugu sameeyay maantana wuxuu rabaa booska qof isaga beeshiisa ka soo jeeda ama beeshiisa ku metelaya inuu keensado aqalkii sare uu ka tagay sanatarka ra'iisul wasaaraha uu ka noqday marka waxaan leenahay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan u direynaa baaq ah inay soo farageliyaan oo ah booska sadbursiga lagu sameynayo xigmad Soomaaliyeed baa waxay oran jirtay sadawaa la luudaamiyaa la qansahay waa ninkii laasa yiri baa hambada lagala laabma taas maanta waxay ka jirtaa siyaasadda federaalka ee Soomaaliya mandaqadan cergaaba sadqaybsigeedii hore ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Silimo doorka cidda istihiinaad kala ciyaartay siyaasaddaas wad garanaysaa halkeedii hoose iyo halkeedii sareba imika space-ka position-ka ee banaanaaday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya ku noqotay aad ka tagtay ee buuxinta u baahan docaynta iyo shariifada aad ka wado inaad saddexaysato adigoo hore u labaystay waa arin gudnima waa arin sadqaybsiga inaga dhaxeeyay aan noqonayn sanatarka hore cidii lahayd Nuura Faarax Jaamac baa sanatarad ka ahayd aqalka sare sanatarka cidii lahayd baa position kaale xukuumadda federaalka ee Soomaaliyana cidii sadka lahayd cid aan hayeysin hore mandaqada cergaaba uga cabanaysay nimankaasina gacalnimo meegin tolnimo meegin waxa laale waxay tixgeliyeen ma jirto cidii ku taageersanina waa cid aqliyan iyaga raacsan isaga sida uu fakiray ee aanu xeerin tolnimada ee aanu xeerin wax wada qaybsiga ee uu maanta ku doonayo position-ka banaanaaday inuu buuxiyo oo position-ka tolka baale iyaga le cid baale waxaanu cod dheer ku sheegaynaa annagoo dhalinyarada magaalada Ceergaaba ah sadqaybsigaas labaad yeelatay waa la yiday booskii sare iyo booskii hooseba campaign adag baad u gashay waa la aqbalay booska saddexaad ee bannaan ee adigu stationly ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya ku noqotay cidii lahayd baale ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare de waan ogeyn markii doorashadii aqalka sare iyo doorashadii aqalka hooseba de waxaad ka waday hadarna markaad waxaad bilowday inaad ma garanaysaa inaad waxba hambaynaad baasha adigu idinkuna isku ballaarisan hadarna aqalkii position-kii banaanaaday ee xaq loo lahaa ee dadkan kale tolka ah ee xaq u lahaayeen waxaad doonaysaa inaad qof reerka inaad keentid waxaan leenahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ina sinimo de waxaas wax ka suuro gelaya ma ahayn markii horeba reer baa lahaa ma garanaysaa position-ka isaga hadarna waxaan leenahay Nuura Faarax baa hadarna position-ka isaga u taagan inaad hadarna ku soo farageliso ku soo ducaysid manihin waxaan leenahay uga digaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxa ay waxyaabaha uu hoos dawladda ka hoos wado iyo gacan gelinta waliba family-giisa hoose ku soo hoos noqonayo waxaan leenahay waa inuu ka waantooba madaxweyne waxaan ku leenahay arrinkaas soo farageli arrinkaas si degdeg ah in loo soo faragelisaa dhalinyaradu waxay darasaacidii booska lahaydna waa in la siiyaa
baaqay dhalinyarada u direysaan oo ka midaysan hadaan nahay dhalinyaradii gobolka waxaan ka midaysanahay inaad naga aqbasho waanu rajaynaynaa gelinta uu sameeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenku Silimo markii horena wax badan baa la tirsanayay wax badan baan tirsanay hadaan nahay dhalinyarada